qof maaragtay ciil qaba oo raba inuu argoosto oo haddana aniga maaragtay dadka aqlabiyadda ugu badan aan ahay waddanka ama deegaanka doorasho ka dhacaysa aan ahay ama saan u qabsado way kasii adkaanaysaa wuxuuna kula dagaalamayaa asagoon maslaxadda ummadda ka fikraynin ciddii kasoo horjeeda ay kula dagaalamayaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wanaagsan akhyaartana daawanaysa halkani waa goobjoog TV kusoo dhawaada waraysi qaas ah oo aan halkan kula yeelanayno Dr. Saciid Ciise Maxamuud oo ah musharax u taagan sanadkan inuu u tartamo xilka madaxweynenimada Soomaaliya waxaana uu doonayaa inuu ka qayb qaato tartanka musharaxnimada xilka madaxweynaha tobanaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dr. Saciid Ciise Maxamuud oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed arrimaha bulshada ka soo shaqeeyay muddo dheer ku noolaa waddanka Mareykanka bara ka soo noqday jaamacadda ummadda Soomaaliyeed magaalada Muqdisho wax ku bartay waxa uu rabaa in markii saddexaad uu u tartamo xilka madaxweynenimada Soomaaliya 2012 iyo 2017 ayuu u tartamay jagada madaxweynenimada ee Soomaaliya markii saddexaad ayuu u tartami doonaa xilka madaxweynenimada ee Soomaaliya oo 5 sano la soo dhaafay ku fadhiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 15 bishan ayaa loo ballansan yahay in la qabto doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya waxaan waraysigan ku dul istaagi doonaa xaaladda guud ee waddanka ee ku saabsan doorashada iyo sida ay wax u socdaan hoggaanka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee 5 sano la soo dhaafay dalka ka arriminayay waxa uu qabtay waxa uu haleeyay iyo sidoo kale madaxdii hore ee dalka soo qabatay sida mar labaad lagu aamini karo inay kursiga ku soo laabtaan hogaamiyaasha cusub ee doonaya inay dalka hogaamiyaan sida loo aamini karo iyo qorshaha cusub ee uu haysto musharax madaxweyne Dr. Saciid Ciise Maxamuud. Dr. kusoo dhawaw goobjoog TV. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii maaragtay waa soo dhaweynayaa dhegeystayaasha maaragtay dhegeysanaya iyo maaragtay xaqiiqiyan maaragtay warbaahinta madaxa bannaan ee xorta ah ee goobjoog iyo mudane wariye Xanaan Xasan oo runtii fursadan ii siiyey inuu waraysi igula yeesho. waa mahadsan tahay Dr. annagana waa kaaga mahad celinayna waqtiga qaaliga bal marka ugu horeysa qiimeyntaada sidee xaalka waddanku uu yahay halkeesa maraya xasan oo horta marka ugu horeysa waxaa la rabaa in la fahmo waddankan horta waa waddan sidee ah Soomaaliya waa jamhuuriyad madax bannaan oo runtii macnaheedu ay tahay in shacabka Soomaaliyeed ay dalkan wada leeyihiin ee uusan lahayn milkiyad ay iska leeyihiin oo macnaha uu iska leeyahay shaqsiga madaxweynaha ka ah taas macnaheedu waxa waaye in cid walba oo rabitaanka macnaha shacabka codkooda haysataahu ay xaq u leedahay waddankan inuu maamulo taas markaan ogaano oo rabitaanka shacabka dalka dimuqraadiga oo yahay mudnaanta ugu weyn awoodda ugu weyn ee dalka uu leeyahay ay tahay ayaa waxaan maaragtay rabaa inaan ku sheego shacabku waxbay arkaan waxna waa rabaan guuxna waa qabaan marka dhibaatooyinkii la soo maray runtii waxaad u malaysaa guuxa shacabku ay qabeen oo rabitaankiisa ah oo dareenkiisa ah oo cabashadiisa ah in xildhibaanadu hadda ay tixgeliyeen oo dhibka lagu soo jiray haddaad u malaysid maaragtay in hoggaanka cusub ee maaragtay baarlamaanku inuu doonayo in khadkii hore ee lagu soo jiray waddanka laga leexiyo bal maaragtay macnaha rajo iyo iftiin iyo kalsooni shacabka maaragtay dib loogu soo celiyo taasaa maaragtay runtii hadda ii muuqata. waa gartay marka sida hadda ay doorashada Soomaaliya u dhacday iyo xaalka waddanku uu ku sugan yahay ma tahay mid iswaafaqaysa oo isla jaan qaadi karta marka waa inaan fiirinaa madaxdii hore waxay ahaayeen imaxda hadda waxay yihiin taas waa inaan fiirinaa runtii maaragtay shacabka Soomaaliyeed markaad fiirisid madaxdii hore maxay arkeen runtii waxay arkeen badda Soomaaliyeed oo qayb ka mid ah gorgortan la geliyay madaxdii markaad joogtana ay lahaayeen war kama hayno waxay arkeen maaragtay macnaha wax la yiraahdo dhulalkii danta guuda oo maaragtay macnaha lagu takrifalayo ay arkeen oo dad masaakiina oo degan oo loo baahna ayaga in dib loogu celiyo haddii dawladdu isticmaaleen oo looga saaray dan guud looga saaray ee haddana maaragtay shakhsiyaad maaragtay madaxdaas maaragtay ku daaban dib loo siiyey waxay arkaan daryeelkii ciidanka oo 70,000 inta adduunweyne usoo tababaray 5,000 xataa aan laga haynin taasoo ah inaysan daryeel haysanin marka taas waxaa waaye waxyaabaha ay dalku arkeen waaye waxaa kaloo jira dastuurkii oo runtii ahay mid aysan shacabka Soomaaliyeed ayagu fikir ahaan iska lahayn oo wadamo dariska ay ku lahaayeen oo qolooyin UN-ka wata koox ay ku lahaayeen oo maamul goboleed oo ku lahaay oo mixna ku noqdo ummadda Soomaaliyeed qaab loo saxaan la waayay ayaguna waxba ka qaban waayeen ayaguna ay keeneen oo u haayeen waxay dad arkeen maqaamkii xamar
oo runtii ayagoo dad ahal guri ahay runtii shacabkan ummaddan oo u baahneed matalaad inay ku yeeshaan dowladdii aan waxba ka soo qaadin oo maarata macnaha bannaanka dhigay waxay kaloo arkeen aan markaan fiirino gurceel 70 maarata waxaa lagu dilay shacabiha lagu dilay oo maarata iyadoo la doonayo in maarata macnaha rabitaanka madaxda markaas joogay la raaco marka intaas shacabku waxay ka arkeen madaxdii hore ka arkeen waxayna u arkeen kuwa runtii aan maslaxadda ummadda Soomaaliyeed ama wanaagga guud ee dalka aan hal shay kaliya kusoo kordhin waayo shacabku wuxuu rabaa amni shacabku wuxuu rabaa dhaqaale shacabku wuxuu rabaa adeeg dowladeed rabaa intiiba way ku waayeen rajo xumaas ayagoo qaba ayaa waxaa madaxda hadda ayaa timid runtii markaan hal meel kaliya ka soo qaado madaxda hadda waddanka haystaa shacabku maxay arkeen shacabku waxay arkeen in si qof ay wadato dowladdaasu in maarata kursigiisii baydhabo dhig loogu galo waxay arkeen dhusmareeb in dhig saaskoo loogu soo galay waxay arkeen shacabkii hiiraan oo xuquuqdooda iyo xorriyadooda iyo dareenkooda cabasho muujinaya in ciidankii Soomaaliyeed oo qaab maleeshiyada loo adeegsaday calanka Soomaaliyeedna wata in lagu xasuuqayay oo dhig loogu daadinayay maxay kaloo arkeen waxay kaloo arkeen in dowladdii ay cadowgooda koowaad ka dhigatay mucaaradkii madaxa bannaanaay oo runtii aad aragteen dad guryahooda lagu waxyeeleeyey oo lagu laayay ciidankoodii iyo madaxdii dalkan soo hogaaminaysay oo xasanad lahay oo ayagana maaragtay difaacooda dhiga ku daatay intaas markay ka arkeen waxaa u sii daran oo runtii kasi darneed inay shacabka arkeen markii madaxweynaadkii dhammaaday muddo kororsi qasaba xooga inay arkeen marka shacabkii markay madaxdii hore madaxa dambe isku geeyaan oo meel yar aan ka soo qabsaday waxaa u muuqatay halis ka dhib badan waxa ay laga sugay ayagii waxay qabtaan iska dhaafeen halista muuqataa waxay tahay runtii inay shacabku arkeen in haddii kuwii hore soo baxaan ama kuwan ay sii joogaan inay yihiin maaragtay kuwo maaragtay runtii cuqdaysan oo maaragtay ciil qaba oo awooddii dowladda iyo hanti dowladda doonaya inay ku argoostaan waa cabsida weyn oo shacabka ay qabaan waana arrin aad runtii u xun tan labaad waxaa waaye waxaa soo kordhiyey madaxda hadda joogta oo ah in xukunka xoog lagu joogo marka waxaad qiyaastaa dadkii ahlu guriga ahay lahay anagaa maaragtay u badan meeshaan ama anagaa saana haddii ay ku yimaadaan yaa beri ka fujinaya xukunkii oo damaanad qaadaya 100 qiile haystaan oo ku haystaan oo maaragtay macnaha ku haystaan marka labadaas shacabku waxay u arkaan halis soo kortay u arkaan sida daraadeed shacabku markay waxaas arkeen waxaa u muuqatay in loo baahan yahay in la helo isbeddel waayo marka la rabo kala guur marka la gaaro waxaa inta badan mudnaanta iska leh continuity ama waxaas inay sii socdaan nidaamyadii hore ama in isbeddel la yimaado marka shacabku waxay rabaan isbeddel ay rabaan laakiin isbeddelkaas ma ahan mid qof lagu bedelayo laakiin waa inuu noqdaa mid aragtiyad waa inuu noqdaa oo waji cusub yimaado iyo aragti cusub timaado oo ka duwan wixii hore shacabkuna ay dareemaan inay helaan baahiyaha ee dowladda maaragtay ay ka sugayaan waa gartay Dr. Saciid Ciise waa dhamaystaa ma leh mawduuca waxaan u laabanaynaa hoggaanka hadda jooga maxamed cabdullaahi farmaajo isku waddan ayaad ka timaadeen maraykanka wax badan aqoon oo u leedahay maxamed cabdullaahi farmaajo aad 2017 taqaanay iyo midka hadda jooga maxaa farqi u dhexeeya runtii markii uu doorashada ku jiray iyo sida loo arkayay waxaan u haysanay nin keeni kara isbeddel keeni kara maadaama waddan dimuqraadi ah oo 20 sano deganaay maadaama uu yahay nin wax bartay uu yahay waxaan rajada aan qabnay systemkii hore oo jiray oo waxba soo kordhinaynin inuu wax ka bedeli karo teeda kale waxaan aaminsanayn inuusan la tuso macnaha caalamka iyo Soomaaliya inaysan maartay maxkamada Soomaaliyeed aysan qoys gooni iska lahayn sidaas daraadeedna ummadii Soomaaliyeed ee qaxday iyo kuwii barakacay in dadka la isku soo celiyo oo dadkii la isku hayo oo dadka ay wada shaqeeyaan xaqiiqdii taas waa mid maartay anaga runtii aan fahamsanayn 2017 waanan u heelinay anagoo ka helinayna madaxdii hore ka helinayna runtii markii uu yimid xukunka uu yimid waxaan aragnay oo runtii yaabka lahayd in maartay macnaha nidaamka uu la yimid meeshii la rabay xukun rayida oo dimuqraadiyad ku dhisan oo dowlad wanaag ku dhisan meeshii la rabay inuu ka bilaabo inuu bilaabay abaabul u habaysan maartay kaljarasnimo ku dhisan xukun military taasaa marka runtii argagax keentay oo runtii keentay inuu wax walba xoog ku dayo meeshii la rabay in maslaxad iyo diblomaasiyad iyo siyaasad wax lagu xalin lahay inuu xoog ku dayo waana garan kartaa inta dhiig oo ka dhacay iyo inta dhibaato oo ka dhacday marka taas marka runtii waxay keentay in wadankii in shacabkiiba inay ka rajo beelaan asagii
oo maanta meesha uu joogaahu aad arkaysid meeshii la rabay dadka aqoon-yahanka ahay oo waxgalka ahay oo waxtarka ahay in hoggaanka dalka loo dhiibo dadba dadka maangaab uu ka yahay maaragtay macnaha waxa la yidhahda macanka ka yahay aqoon gaab ka yahay ayaa loo dhiibay waxaadna ka arki doontaan ciidanka fiiri ciidankii la rabay in la dhiso waxa waaye raggii way aragnimada durugsan u lahay oo indhaha u ahay oo way aragga ahay oo maaragtay tayada dhismaha ciidanka keeni lahay kulli waa laga wasaaray waxaa la keenay dhalinyaro jundi amraha la keenay oo amarka madaxweynaha ku shaqaynaya oo amarka shakhsiga ku shaqaynaya oo danaaga ku shaqaynaya taas marka waxay ku muujinaysaa maaragtay macnaha waxa la yidhahdo meesha laga gaaray kaltalasnimada laga gaaray waa gartay maxamed cabdullahi farmaajo hadda waa ololeynayaa wuxuuna rabaa kursiga in mar kale loo doorto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweynaha sagaalaad wuxuu qaatay slogan ama halkudhig mucaaradka iyo dadka dowladda kasoo horjeeda markaas xukunka jooga lagu yaqaanay oo ah isbeddel maxamed cabdullahi farmaajo maxay tahay sababta uu u doortay in halkudhig la yidhaahdo isbeddelka socda uu u qaato runtii horta ereygan la yidhaahdo isbeddel doonka dad badan si khaldan ayay u isticmaaleen ujeedaduna waxa waaye in maaragtay macnaha waxa la yidhaahdo rajada iyo wanaagga uu leeyahay ereygaasu oo dadka maaragtay macnaha waxa la yidhahdo aragtida cusub wataahu ama doonaya waddankaani inuu ka dhaco isbeddel hogaamineed iyo mid aragtiyadu ka dhaco mid waxaad u malaysaa lagu majaxaabinayo oo barkee sababtoo ah madaxweynuhu haddii maaragtay macnaha 2017 uu isbeddel bilaabi lahay oo uu samayn lahay axsaabtii dhiirigeli lahay oo maaragtay doorashada qofkii cod samayn lahay oo maaragtay macnaha hanaankii dowladnimada iyo dimuqraadiyadda uu xooji lahay meesha uu ciidanka iyo xoogga iyo waxaas uu saaray waa loo arkayey maaragtay macnaha inuu yahay nin maaragtay macnaha isbeddel doona waa loo arki lahay laakiin maanta oo 5 sano uusan waxba soo qabanin oo runtii waddankan aan dhihi karnaahu wuxuu ahaa waddan maxmiyad ku jira oo maaragtay maqaar saara maaragtay macnaha waxa la yidhaahdo xukunka uu ku socday maaragtay inuu hadda yidhaahdo waxaan samaynayaa isbeddel waa arrin maaragtay runtii maaragtay ujeeddo kale leh oo saan u sheegay aysan ahayn macnuhu slogankaanu mid uu wax ku qabanayo laakiin ay tahay mid uu kula dagaalamayo ku cadowtinimaynayo oo doonayo dadka maaragtay kale inuu kula haro ama uu ku dhibaateeyo ama maaragtay macnaha waxa la yidhahdo uu ku baabaasho dadaaladooda maxaa ku kalifa inuu dadkaas dhibaateeyo runtii sidaan kuu sheegay shacabku waxay dareemeen haddii madaxdii hore ay soo noqoto iyo hadda madaxdan ay soo noqoto in dhibaatooyin fara badan ay kala gaareen oo runtii maaragtay macnaha waxa la yidhaahdo ay ciil badan qabaan kuwii hore isaguna uu ciil badan qabo sababta wuxuu aaminsan yahay asagii waxyaabihii soo jeclaay oo uu rabay oo rabitaankiisa ahayd inuusan horgelin oo laga hor istaagay oo runtii mucaaradka maaragtay madaxa bannaanu ay si geesinimo oo dhiiranaan ah ay u muujiyeen maamul xumadii u muujiyeen hoggaan xumadii ay u muujiyeen maaragtay macnaha waxa la yidhaahdo maaragtay waxyaabahaas dhan ay u muujiyeen taasoo runtii asaga ku ahayd arrin uu hore ugu dhaqaaqi waayey marar badanna ka hor timid maaragtay waxyaabo uu rabay inuu ku afduubto shacabkan ku afduubto marka wuxuu noqday nin ciil qaba wuxuu noqday nin cadowtooyo qaba wuxuu noqday nin aarsidoon ah marka muxuu ah wax la yidhaahdo si walba oo u awoodo ama ha noqoto hadal ama ha noqoto ficil marka hadda kahor ficil waa muujiyey oo dadka waa weeraray oo dad wuu dilay oo dad marka dagaalka wuxuu la galay inuu sloganiskii dadku qabo saas waay macnaha waa dagaal maaragtay uu kula jiro mucaaradka kula jira maahan mid shacabka loogu danaynayo maahan farmaajo waxyaabo badanaa laga dhaxlay sidaad sheegtay hal sheeko oo khatara oo hadalkaa ku jirta ayaa jirta waxyaabaha laga baran karo farmaajo waxaa ka mid ah tiri in xukunka la isku dhejiyo maxaad ula jeedaa in xukunka la isku dhejiyo yaa isku dhejinaya xukunka yaase laga xiisana xukunka runtii markii madaxweynuhu uu yimid meeshii uu ka shaqay lahay adeegyada dadka ay u baahan yihiin oo la rabo maaragtay in istiraatiijiyooyin qorshaysan oo waxqabad ah loo sameeyo siyaasadaha lagu hagi lahay arrimaha gudaha iyo diblomaasiyadda arrimaha dibadda wuxuu bilaabay maalintii oo xukunka yimid sidii loo soo dooro lahaa si uga shaqeeyo si uga shaqeeyana wuxuu bilaabay inuu maaragtay caqabadaha waxyaabaha uu arko inuu ka hortago inuu ciidankii la wareego oo ka dhigo ciidan maslaxadiisa gaar ka shaqaynaysa inuu dhaqaalihii la wareego oo maaragtay macnaha uu ka dhigo wax maaragtay asaga danihiisa gaarka ahayd uu ku samaysanayo oo maamul goboleed ku soo dhisto ama uu maaragtay ama uu dad maaragtay macnaha baraha bulshada uu ku samaysto propaganda uu ku abuurto maalintuu yimid taasuu bilaabay jidkaasuu qaaday ciddii kula talisay waa cid maaragtay runtii maaragtay macnaha waxa la yidhahdo meel xun ka tuuraysay laakiin nasiib wanaag asagana waa rumoobay wuuna raacay taas marka maxay keentay wixii waa fashilmeen waxna ma uusan qaban
marka wax kaliya uu soo haray waxaa waaye maadaama uu ciidan isku duuday 100 magac leh oo ujeedadoodu hal maalin aan dadka xagjirinta la dagaalamin laakiin ay asagoo isku difaacayo iyo saaxiibadiisa ku difaacayo uu samaystay ayaa maartay waxa u soo baxday inuu maartay macnaha wax la yiraahdo xukunka uu dheeraysto oo uu leeyahay inqilaab ku qabso xukunkan qorshooyin anaga aan ogeyn oo sirahay oo fara badan oo laga yaabo markuu meesha ka tago in la ogaado ayaa jira oo ninka la yiraahdo Eritrea uu la wadaagay oo ninka la yiraahdo Ethiopia uu la wadaagay oo la doonayo wadankan maartay laga dhaxsiyo asaga in geeska Afrika wal wadan aan ka dhigaynaa xoogan sameeynayna wadamada magacyada maqaarsaaraan ka dhigay wax noocaas oo kale hidiyada been ah in la geliyay asagiina la geliyay inuu noqdo kaltalsinimo 30 sanana xukunka lagu haynayo wax noocaas oo kale ah taas marka riyadii dagaalka Ethiopia baabiisay oo galay oo shacabka la galay Ethiopia taas marka maxay keentay markuu ogaaday inuusan waxna qabanin tan is u suurtoobaynin xogaa yarka uu haysta marka inuu muujiyo inuu maartay isku adkayo xukunka isku adkayo taas marka waxay horseeday in madaxweynaha xukunka haysta ee awoodii dalka haysta ee dhaqaalihi dalka haysta inuu isku dayi karo inuu maartay macnaha wax la yiraahdo xukunka oo xoog ku sii joogo ka sii daran markii uu yimaado qof maartay ciil qaba oo raba inuu argoosto oo haddana aniga maartay dadka aqlabiyadda ugu badan aan ahay wadanka ama deegaanka doorashada dhacaysa aan ahay ama saana uu qabsado way ka sii adkaanaysaa wuxuuna kula dagaalamayaa asagoo maslaxadda ummadda ka fikraynin cidda kasoo horjeeda ay kula dagaalamaya taas waa marka midda aan leeyahay halista hadda mustaqbalka siyaasiyiinta ay ka dhaxlayaan farmaajo waxa waaye in xukunka la isku dhajiyo xukunka la haysto meesha loo baahnaay xukunka si nabada oo marka waxaa kugu jirta cabsi ah siyaasiyiinta muqdisho ka soo jeeda haddii ay filla Soomaaliya kolkan galaan inaan xukunka si dheela looga qaadin saas u badan tahay shalay madaxdii shalay oo runtii sida wanaagga ah xukunka ku wareejiyay markii la xabadeeyay oo la dilay oo la dhaawacay oo dhaqaalahoodii ilbaaba oo xasanaadkoodii dhulka la dhigay waxa kaliya oo ay qabaan waxa waaye haddii maanta ay ku soo noqoto haddii ku soo noqoto cidi ka qaad lahayd loo baahan yahay marka waxay aaminsan yihiin xukunka marka hore ciyaar looga qaato marka aan laga qaadin waa gartay Dr. Saciid Ciise haddii aan si kooban ku weydiiyo markii saddexaad rabta inaad tartanto maxay tahay sababta kugu kalifaysa inaad mar saddexaad aad kursigaas raadiso oo damac kaa soo galo sidaad ogtahay mudane xasanow shacabka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin dad dhiirigeli u baahan yihiin macnaha annaga mas'uuliyiintii naga horeysay oo jiilalkii waaweyneed waa dhinteen annaguna jiilalka dhaxaan hadda ku jirnaa jiilalka cusubna waxaa loo baahan in lagu dhiirigeliya loo baahan yahay marka waa in ay noqotaa macnaha hamiga ummaddu dad u halgamaya waa inay jiraan anagu dhaqaale aan leeyahay laaluushaan ku bixinaya oo madaxaan ku imaanaya ma aaminsanay anigu maartay macnaha khiyaano iyo iska daba wareeg ma aaminsanay anigu waxaan aaminsanahay sidaan kuu sheegay in codka shacabka ama rabitaanka shacabka iyo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed meesha ay u jirto in la abaaro ayaan aaminsanahay wax dawladuna ay noqoto madaxweyne u noqdo mid akhlaaq wanaagsan leh oo ummadiisa u xaq soori karaa oo runtii maartay daacadnimo wadaninimo ay ku jirto oo ummadaas maartay macnaha khayraadkan ay ku qaybsan karaan wadanku uu iska leeyahay macnaha adeega dadweynaha ee dawladda bixisana ay u sameeyeen waa mid maartay macnaha ugu muhiimsan waaye waxaan jecelahay wadankan inuu noqdo wadan dimuqraadiya oo dawladda ay ku shaqayso rabitaanka dadka dareenkooda lagu shaqeeyo danta guud ee maslaxadana lagu shaqeeyo waa mid aan aaminsanahay mabdi'iyan waxaan aaminsanahay in siyaasadda dawladda ay noqoto mid dhexaada oo inta badan wadankanaga oo burbur ka yimid uusan haddana la gelinin xasarada adduunyada ka jira uusan la gelinin marka waxaas oo dhan marka la isku daro waxaa imaanaysaa inaadan ka quusanin inta aad arkaysid maartay macnaha masaalix qaloocan dad wata oo kule aniga maamul goboleeda madax ka soo ahay lacagaan wataa aniga maxaa soo ahaa madax saraan soo ahay lacagaan wataa aniga dawlad hebel ay wataa lacagaan wataa waxaas oo dhan fikradahaas oo dhan inaan diidno waana kugu celinayaa bal u fiirso mursaliintii ilaahay soo diray hal nin oo lacag loo soo dhiibay ma jirin kulli waxaa loo soo dhiibay risaalooyin adag aa loo soo dhiibay oo bulshooyinkooda dhib kala kulmayeen maantana wadanku meel halisa oo qara uu joogaa wuxuuna u baahan yahay qubad baadi karaa u baahan yahay oo masaalixdiisa gaarka ahayd ka hormariya midda guud ka hormariya oo ummaddan runtii ka gudbiya caqabadan maartay ka gudbiya taas waa marka hamiga ama yoolka markaa aragtid ama markas aad fiirsanaysid oo aad leedahay haddaad xukunkan timaadid wax badan aad u qaban kartaa ummaddan mustaqbalkoodana waa iftiimi kartaa rajana ku soo celi kartaa waa gartay in Soomaaliya sanadkan 2022 ay aaminto qof cusub oo aan hore loo soo arkin aad ayuu adag tahay waxaana daliilkuga madax cusub oo hore dalkan u soo martay oo kursiga fadhiistay
oo dee xukunkii si kale ama dadkii kalsoonidoodii hanan waayo sidee suuragal ku tahay waktigan adag in qof cusub oo sidaadoo kaleeta oo siyaasadda aan position weyn ka soo qaban in lagu aamino kursiga waddanka ugu horta sideedaba laba wax ayaa adduunka ka jirta ninna maaragtay muxuu ahaa waayo aragnimo sanooyin badan qaadata ayuu wuxuu ku noqdaa janan ku noqdaa ama uu ku noqdaa professor ku noqdaa dugsi hoose kasoo bilaabaa dugsi dhexe gaaraa macallin noqdaa jaamacad ka daba dhigaa way aragnimo badan noocaas oo kale dad marka waxaa waaye dadna aqoonay dhaqso ku helaan oo aqoontii loo baahnaa in waddanka lagu hogaamiyo ama lagu horumariyo ay istiraatiijiyooyinkii iyo qorshooyinka wax lagu qaban lahay ayay soo bartaan wayna u fududahay horta dhinac marka laga fiiriyo macnaha waad arkaysaa oo dadka maaragtay macnaha wax la yihahdaa cusub rajooyin cusubay qabaan wejiyo cusubay wataan aragtiyo ay wataan maaragtay ka duwan wixii hore waxayna maslaxad u arkaan inay wax wanaajiyaan inay wax dhacaan uma arkaan marka dhinac marka laga fiiriyo hadalkaaga wuxuu u muuqdaa haddaadan maaragtay xoolo badan lahayn ama maaragtay macnaha wax la yihahdo aadan ahayn nin wax soo dhacay oo hore loo yaqaano libaax aadan lahayn way adkaanaysaa maaragtay macnaha dadku inay kuu sameeyaan waa run waddanku waa wadan qabiil waaye qabiilkuna maaragtay cadaalad ma leh waxayna ku farxsan yihiin ninkooda ama xumaad ama ficnaade inuu awoodda qabsado ayaguna markuu ninkaas yimaado ay dhacaan waxa la waxa dowladda ay leeyihiin waana waxyaabaha aan ka soo horjeedno waaye waana waxyaabaha aan doonayna shacabka Soomaaliyeed inaan gelino in maaragtay macnaha isbeddel la sameyn karo in horumar la sameyn karo in waddankan karaamadiisii iyo wanaagiisii la hagaajin karo oo aysan ku xirnayn madax hore ku xirnayn kuwa hadda jooga isku xirnayn laakiin ay ku xirnaa doonto dadka fikiraya ayatiinka mustaqbalka dheer ee waddankan uu yeelanayo waa gartay musuqa aadaad usoo hadal qaaday doorashooyinka waxaa hareeya laaluush codod kala gadasho dowlado shisheeyaa soo gala oo dhaqaalo ku bixiya maxay tahay falsafadda aad u hayso ee lagu karo waxaas runtii adduunka waxaa ka jira waddan kasta ee raba inuu doorasho galo wuxuu samaystaa shuruuc samaystaa qofka ama asaga wuxuu ka bixiyaa waddankii qofka tartamaya boqolkiiba 5 codka dadweynaha hela ama xisbi ha noqoto ama keligiis ha noqdee waxay yiraahdaan qarash anaa kaa bixinayna aad ku howlgalaysid sida daraaddeed marka shisheeye marka ma soo faragasho karo ama qofka ayaa maaragtay macnaha wax la yiraahdo xisbiyadiisii iyo maaragtay maalgelin hoose oo arusa fundraising ku hela laakiinse waxa ugu muhiimsan waddanka shuruucdiisa in la soo saaro qofka lagu arko inuu sameynayo musuqmaasuq sameynayo inuu si xilka u tami karin haddii lagu helo oo qofka waxaa la warsanayaa maxaa dhaqaale doorasho ku gelaysaa waxaan ku gelayaa 10,000 maxaa kuu qoy meedi intaas iga baxaysa security iga baxaya maartay muxuu ahaa la kulmo dadka intaas iga baxaysa taasaan wax ku wadayaa lala socdo qofkii oo lala xisaabtamo laakiin tan ugu muhiimsan waxay tahay in waddanka uu yeesho sharci xakameeya shisheeya oo aysan dalka ku xadgudbi karin inay dhaqaale soo geliyaan ama laba qof oo walaala oo tartamaya inay kala door bidaan shacabka aan loo baahay inay kala saaraan shacabkana runtii maaragtay macnaha waxaa ama wakiilka ah oo masiirkooda siyaasadeed ku metelaya xildhibaanada ayagaa waxay xildhibaanada waxay codkooda afti dadweyne taasaa marka waxaa waaye midda loo baahay in dad kala saarto laakiin ma aha lacagta bannaanka imaanaysa ama midda musuqmaasuq ku imaanaysa in la ogaado laakiinse waxaas oo dhan waxaa xeeri kara in loo sameeyo sharci loo sameeyo waana waxaan jecelahay haddaan ku guulaysto xilka marka ugu horreysaahu inaan maaragtay macnaha waddankii xisbiya siyaasadeedka hirgeliyo doorasho qof iyo cod oo xor ah oo maaragtay macnaha furan oo xalaal ahna maaragtay xaq ah inaan maaragtay dadka u horseedo oo dadka u tartamayaan oo weliba aan ka joojiyo wax la yiraahdo lacagaha dadka leeyahay waa la bixinaya leeyahay laga joojiyo oo nin walba ay noqoto haddaad shacabku ay ku rabaan welcome waa gartay dowladda hadda joogta 5 sano u dhamaatay waxay aad ugu faantaa inay wax ka qabatay musuqa ma aaminsan tahay in musuqmaasuq lala dagaalamo 5 sano runtii waad ka fahmi kartaa in aan wax musuqmaasuq lala dagaalamin laakiin waxaad isweydiinaysaa hantidii dowladda xagee ku baxday markii baydhabo la soo saaranayay maamul goboleedka madaxweynaheedii yaa soo saaray markii dhuusamareeb la soo saaray yaa soo saaray markii hirshabelle la soo saaray yaa soo saaray waxyaabahaas oo dhan xagee ka yimaadeen oo dhaqaalaha ka yimaadeen waa dhaqaalihii ummadda Soomaaliyeed kumanaan qoysas wax loogu qaban lahay laakiinse dana musuqmaasuqa oo laaluusha loogu sameeyey waxaad fiirisid kulli maaragtay xildhibaanada waxyaabaha ay sameynayeen oo ku soo baxeen bal warso in wuxuu ku lacag ku soo baxo ku leeyahay aan ahayn midda officialka oo diiwaangelinta ahayn waxyaabo kale oo moogta oo la sameeyaa jira marka dowladdu waa jirtaa inay maaragtay la timid mashruuc deyn cafina oo runtii ahaa mashruuc waqti dhumisa sababtoo ah dowladdu marka ay timid ayaa ugu dambeysay shaqaale rayid oo la qoro ugu dambeysay ciidamo yar waa jireen
shaqaaluhu 6,000 7,000 meelahaas ahaayeen meesheedina joogeen marka mashruucaas madadaaliska dadweynaha ahay ee dadka waxaa lagu yidhi asoonkaas jirin waxba lama qori karo asoon kala yeelin lama qori karo marka runtii waxaan aaminsanahay in musuqmaasuqii oo meeshiisii kasii batan aaminsanahay waxaadna ku ogaan kartaa adigii oo hadda aad ku hubi kartaa meel walba oo adeeg dadweyne aad u doonatid bal maanta waxaad tidhahdaa warqadda dhalashadaan rabaa wax ka dhilitima jirtaa inta aad maraysid fiiri baasbooraan rabaa dhe waa dokumenti dowladeed waaye waxaan rabaa dhe warqad nabadsuudaan rabaa dhe dokumenti dowladeed waaye wax walba oo aad raadsid dowladda waa arkaysaa waxna lagama qaban waxaad arkaysaa canshuurtii dalka oo runtii waddanku canshuur ma leh laakiin waxaad arkaysaa dad qowlisitaa oo dowladda ogtaha ayaa canshuurta qaadanaya oo kale guryahan ka qaadanayna bangi dowladda ma gasho waxaad arkaysaa maaragtay macnaha jidadkii baabuurta loo taagan yahay guryihi dadka loo taagan yahay meel walba maaragtay macnaha isbaara taalla lacagtaas lacag dowladda soo xaroonaysa maahan dowladda may dhalaadahay soo ma arkayso waa maxa marka musuqmaasuqu waxay ka qabatay ilaa hadda ma jiraan maana hay-adaheeda la xisaabtan ay kula xisaabtamayaan oo ay leeyihiin miisaaniyadda saasay ahayd intaasaa kugu baxday intaasaa kugu maqan ay leeyihiin maalin laakiin ninka hanti dhowraha wuxuu yidhahdaa waxaasaa maqan heshiise qaladaha la galay kanaa la sameeyey dowladdu waxba kama soo saarto waxna ma qabato marka ma aaminsani in maaragtay macnaha dowladda ay marna la timid hal tilaabo oo musuqmaasuqa ku dhex jira maamulka dowladda ay wax ka qabatay xisaab xirka miisaaniyadda oo kaleeto dowladdan waxaa lagu eedeeyaa inaysan samayn xisaab xirka miisaaniyadda ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre iyo maxamed cabdullahi farmaajo oo isla wada socda maxaa sababtay u samayn waayeen maxay tahay runtii maaragtay muxuu ahaa waxyaaba badanoo waxaa jira lacagta miisaaniyadda midna waa mid gudaha ka timaada midna waa mid dibadda ka timaada oo lagu kabo haddii marka iyagu ay fursad u heleen lacagihii ka imaanaysay gobol ka imaanaysa canshuuraha inaysan bangi soo marin si toosa madaxtooyada loo geeyo ama prime ministerka oo xafiiskiisa loo geeyo ama ay dhacdo lacagihii maaragtay macnaha waxa la yidhaahdo ee banaanka imaanaya in qaar loo isticmaalo space politica loo isticmaalo oo adeegyo siyaasadeed lagu qabsado maaragtay haddee wixii isma bixinayaan waxaan inta badan imaanaysa been abuur meelaha laga soo buuxinayo oo leeyahay jidkaasaan dhisnay waxaa ku baxay intaas taallaan dhisnay waxaa ku baxay intaas kanaan samaynay marka wax maaragtay wixii macquulana maahan oo dadku ay qaadanayaan sababto dadku maantay dad badan oo aqoon-yahan ay leeyihiin marka waxaan isleeyahay waxyaaba badan oo waxaa jira aysan u haynin inay dadaan laakiinse alxamdulillah marka xukunka oo madaxweynuhu ka tago ayaa xeebihiisa la ogaadaa waa gartay ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre dadka tartama uu ka mid yahay sanadkan ma aaminsan tahay inuu shaqo fiican u soo qabtay soomaaliya 3 sano iyo bar uu ra-iisul wasaare ahaa wallahi waxaan anigu aaminsanahay madaxdii hore markaan ku leeyahay madaxdii hore kuwa hadda jooga waa madaxdii hore iyo kuwa kasii horreeyey intuba inaysan waxba dalkan u qaban inay dhibaato kusoo kordhiyaan maahine mashkilooyin fara badan oo runtii ilaa hadda taagan oo shacabka dhexdiisa la dhex dhigay ayaa hadda taagan oo runtii aad arkaysaan maantay in xataa la xalli waayey gobolka gado xal loo waayo oo leeyahay maanta xildhibaanadeedii waa 16 looga baahnaay marka anigu ma aaminsani madaxdii hore inay ummaddan wax u qabatay ma aaminsani mana aaminsani in la yidhaahdo laba qof oo wada shaqaynaysay oo baalal isku ahaa garab isku ahay in la yidhaahdo qofkaana waa qof mukhlisa oo fiican qofkaana waa qof khaa'ina anu ma aaminsani waxa waaye waa systemkaas macnaha lagu jiro ama ha ahaado systemka madaxdii hore marka la fiirinayo ha ahaado kuwii hore ama ha noqdo kuwa hadda jiraaho waa system wada socdo waaye heshiis ahay waaye kuwad ahay in maaragtay intaas dhibka u dhacayay ninka ra-iisul wasaare ahay ee arki waayey inuu wax ka qabto dee dabcan maarata ma dhihi kartid waxaas waxaa watay madaxiisa keliyaha watay ma dhihi kartid macnaha waxa weeyaan qofku hadduu maryaha nin siyaasi yahay adduunyada xeer ka jirta waxa waaye in qofku oo mas-uuliyaddiisa hadduu yahay nin siyaasiya asagay ku dhacayso asagana fulinta iska leeyahay marka dhibaatooyinka waddan ka dhacay waa gartay maxamed cabdullahi farmaajo wuxuu aad ugu kaambeyn garaynayaa dhismaha ciidamada soomaaliya in la dhisa ma aaminsan tahay 5 sano soo dhaaf runtii su-aasha waa halkaas waaye markaad aragtid ciidankii soomaaliyeed oo shacabkii caburinaya oo banaanbax u diiday markay banaanbaxu iyo mudaharaadku waa xuquuq dadku iska leeyihiin dastuurka qoran tahay diidayahu marka waxaad fiirinaysaa waa maxay ciidanka u dhisay dhinacii kale maalintii oo farmaajo yimid waddanka ilaa iyo waxaa lagu tegi jiray maarata macnaa baraawo dhinacaana waxaa lagu tegay ilaa jallaqsa lagu tegay maalintan afgoy lama gaari karo inta lama gaari karo kasii darane waxaan ba la aamini waaye ciidanka aad sheegaysaa la aamini waaye oo leeyahay raggii xagjirinta ahaa ayaa 70% ku dhex milan ayagaa maaragtay macnaha ku dhex jira marka su-aashu waxa waaye ciidanku hadduu yahay ciidan qaran yahay waa inuu mas-uuliyaddiisa qaataa oo uusan noqon ciidan u shaqeeya madaxda dowladda waa inuusan noqonin waa inuu noqdaa ciidan u shaqeeya oo u dhaartay waajibaadkiisa inuu guto waddankan dhibaatooyin waxaa ku haya xagjirinta oo shacabka rayidka ah iyo dowladnimada soomaaliyeed dhibaato ku ah oon rabinin
kaasaa wax laga qaban lahay haddii maaragtay ay jirto laakiin shacabku le jidadkaan xiraynaa oo marka u dambeysay aad arkaysay oo ay ku lahaayeen doorasha ma dhacayso mana ogolin oo ay xiranayeen adigu marka ciidan ma ku tilmaami karta dadkaas ratio maaragtay macnaha waxa la yidhaahdo la hubeeyey oo madaxda u shaqaynaysa ugu dambeyntii xildhibaanada soomaaliya waa la dhaariyey guddoon baarlamaan is doorteen waa diyaar 15 bishaan ay waxay dooranayaan madaxweyne Soomaaliyeed sida qorshuhu yahay maxay tahay fariinta aad u dirayso xildhibaanada Soomaaliyeed maadaama aad rabto kursi ugu sarreeya ee dalka inaad ku fariisato waxaan runtii anigu aan aaminsanahay in maaragtay muxuuha waxa la yidhahdo xildhibaanadaanu ay yihiin kuwo inta badan dhalinyaro u badan dhibka waxa ku dhacayana inuu yahay mustaqbalkooda iyo mustaqbalka ubadkooda waan ka soo sheekaynay in madaxdii hore iyo madaxda hadda joogtaa ay maaragtay waddankan inay boobaan oo ay dhacaan maahan aysan waxba ku soo kordhin oo ay maslaxadooda gaarka ah ka shaqaynayeen oo ay nin walba oo shacaban ay u muuqato ku takrifalkii hantiyeed iyo ku takrifalkii awoodeed oo ay samaysteen maanta cid looga sheekaynaya ma jiro madaxdii soo martay iyo ku hadda joogaa shacabku ka dharagsan yihiin waxaan leeyahay runtii waxaad u dhaarateen shacabka Soomaaliyeed marqaatina waxaa ka ilaahay ka ah caalamkuna waa idin soo fiirsanayaa waxayna fiirinayaan waddankan maanta meel halis uu joogaa wuxuuna ka sii socdaa haadaanu ka dhacaya si aad uga badbaadi lahaydeen waxay ku xiran tahay Soomaalinimadiina islaamnimadiina iyo wadannimadiina inaad ku badbaadisaan oo waddankan aad u doorataan qof samata bixi kara oo mustaqbalkiisa iyo aayihiisa dambe maaragtay macnaha u keeni karaa ummadda Soomaaliyeed mid ka shaqeeya wanaagga maslaxadiisa ka shaqeeya taas waa mid anigu aan leeyahay waa in xildhibaanadu ay u dhaganuglaadaan guuxa dadweynaha rabitaanka dadweynaha ayaguna ay ku shaqeeyaan sida shacabka uu rabo aysan marna ku shaqaynin dadkan jeebka waaweyn oo dhaqaalaha la ordaaya iyo madaxdan maaragtay muxuu wax la yiraahdo soo fadhiisay oo wax ay soo zaaysan la arkin ninka shalay jooga 5 sano haddii 10 sano kala joogan waxa ma qabanayo caqabadihii hortaagan ku cusubna waa ku darsanayaan taasaan aaminsanahay waxaan leeyahay mudana xildhibaanyaal waji cusub aragti cusub qalbi cusub hidilo cusub shacabku waa inuu helaa dhiig cusub waa inuu helaa oo waxyaabaha dhibaatada dhaqameesha uu jooga ka dhaqaaji kara aad baa mahadsantahay Dr. Saciid Ciise Maxamuud aad baan kaaga mahadcelinaynaa daawadayaal intaasaan kusoo gabagabeynayaa waraysigan halkan kula yeelanayna musharax madaxweyne Dr. Saciid Ciise Maxamuud oo ka mid ah sanadkan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya tan iyo kulantadeena dambe nabadgelyo